xildhibaan Axmed Nuur Guruuje oo kamida mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa saaka ka hor yimi isla markaana sharci darro ku tilmaamay tababar ay u qabanaysay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo shirgudoonku ay iska kaashanayeen isla markaana xildhibaanada loo qabanayay waxa uu sheegay inaanay suurtagal ahayn inay wasaaraddu ka mid noqoto sidoo kalena ay haatan ay tahay sharci jabin isla markaana ka hor imanayso xeer hoosaadka Axmed Nuur Guruuje oo ku sugnaa fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sidan ku baaqay waxa igu muuqataa iyadoo maanta aynu golihii fadhino kooramkii loo dhan yahay in hawshan aynu haynaa dastuurka iyo xeer hoosaadka ay khilaafsan tahay haybadii golaha wakiiladana aynu meel kaga dhacnay sidaa darteed khubaro waxay ku iman kartaa golaha wakiilada saddex arrin oo kaliya inay yihiin shaqaalihii golaha wakiilada ee dastuurka iyo xeer hoosaadku jideeyeen sida uu sheegay qodobka 250 ee dastuurku kuwaas oo shirgudoonka hawlahooda ka gacansiinaya waxa kale oo ku iman karaan si waafaqsan qodobka 740 ee dastuurka inay gacansiinayaan mas'uuliyiin dawladeed oo goluhu u yeedhay sidii shalay dhacday waxa kale oo ku iman karaan in si maamuus sharafeeda goluhu u marti qaado oo ay qodbad sharafeed u jeediyaan taasoo ah curfi caalami ah oo la isla yaqaano qaladaadkeenu galnay maanta waxa kamid ah waxaynu ka hadlaynay maanta oo dhan foreign policy wasaaradda arrimaha dibadda inay lama joogto waxay ahayd foreign policy inaynu ka hadalno iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda inay la joogto innaguna aynu su'aalo weydiinayno khabaraduna ay ka gacansiiso dhanka kale waxa uu xildhibaanku sheegay isla markaana u soo jeediyay xildhibaanada golaha wakiiladu inaanay ka soo xaadirin si socodka tababarka maalinta bariya waxaanu taasi ku sifeeyay inay qayral sharci tahay isla markaana aanay suurtagal ahayn inay wasaaradda xiriirka golayaashu ay tababar u qabato amba qayb ka noqoto si loogu tababaro xildhibaanada waa Maxamed Cali Xaashi telefishinka Badda Cas magaalada Hargeysa.